وطحي ولو waxaan ku suganahay afaafka hore oo halkan xayaad oo halka uu ka socdo weerarka u dhaxeeya dagaalayaalka shabaab iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya qiibihiisa kala duwan marka ka dambeysay gudaha hotelka waxaad ka maqlaysaa rasaasta ciidiisa kala duwan oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan waxaana hadda ku jira gudaha hotelka ee ka dagaalamaya laamaha amniga iyo qofka markaasi al-shabaab xubno ka tirsan sidoo kale waxaa ku jira ciidamada Alfa Group iyo sidoo kale ciidamada booliiska qiibihiisa kala duwan iyo ciidamada sida gaarka u tababaran haram cad taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir General Farxaan asigana waa ugu jira markii aad fiiriso weerarka labada dhinacba ay isdeysanayaan waxa uu yahay marba marka ka dambaysa mid hor leh oo sii darsanaya xaaladuna marka aad fiiriso waxay noqonaysaa mid cakiran hase yeeshee laamaha amnigu waxay wadaan dadaallo ku aadan sidii ay weerarka u soo afjari lahaayeen oo xalay fiidkii hore markaasi waxa ka tirsan al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen hotelkan xayaad oo ah hotel inta badan ay isugu yimaadaan bulshada Soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan odayaal dhaqameed siyaasiyiin ayaana dadka halkan imaada ka mid ah inta badan markii aad fiiriso hotelkan hotelada caanka ee ku yaala magaalada Muqdisho ayuu ka mid yahay waxaad maqlaysaan waa dhawaqa rasaasta ay adeegsanayaan labada dhinac ee ku dagaalamaya gudaha hotelka xayaad iyadoona natiijada iyo wixii soo kordhana aad ku daawan doontaan wararkeena dambe hadduu alla idmo weerarkan khasaare waxaa ka soo gaaray dadoo kala gedisan oo dad markaasi mas'uuliyiin dowladeed ay ka mid yihiin oo ciidamadu ay qayb ka yihiin hase yeeshee markii aad fiiriso hotelka iyo agagaarkiisaba waa mid go'doon ah oo shacabka Soomaaliyeed looma ogola